wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku faaqidi doono war la xiriira xaaladda wadanka Ethiopia si gaar ah waxaan u soo qaadan doonaa arrimaha ku saabsan dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia oo barnaamijkan aan si gooni ah ugu eegi doono muddooyinkii ugu dambeeyay wadanka Ethiopia waxaa si weyn loo hadalhayay isbeddello waaweyn oo la xiriira dhinaca iyo dagaalada waxaa la filayay in xaalku uu isbedeli doono wada hadallana bilaaban doonaan sida uu qorshuhu ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali waxa uu qaatay tallaabooyin adag oo dhammaantood ay hay'adaha caalamka oo ay qaramada midoobay ka mid tahay wadamada reer galbeedku ay ku tilmaameen mid geesinimo leh dulqaad iyo u helinta danta qaranka iyo dadku ay ku jirto Biden ayaa la soo hadlay Abiy Ahmed markay taasi dhacday madax kale oo reer galbeedka ahayd ayaa iyaguna la soo hadlay wadamada qaaradda oo Obasanjo u xil saaray arrimahan iyaguna way laba korjibaareen kulankoodii caadiga ahaa ee goboleedka midowga Afrikana Addis Ababa ayuu toddobaadka soo socday ka furmaya intaas waxaa dheerayd qurbo joogta wadanka Ethiopia oo iyaguna kulamo kala duwan dawladda la yeeshay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo cadeeyay in uu xilka ka degi doono hadduu xal u noqdo xaalka Ethiopia waxa kale oo jirtay in ay maamulada iyo maxaabiistii la sii daayay iyo dhammaan siyaasiyiintu ay soo dhaweeyeen xaalka guud xiisadda in la dajiyana lagu wada heshiiyay xalka kali ana midaas iyada loo arkay laakiin waxaan marar kala duwan idin sheegnay inay intaasba hoos socdaan xaalado kale oo xasarada ah oo wali ka taagan wadanka Ethiopia si gaar ah waxaan idinku celcelinay toddobaadyadii la soo dhaafay dagaalo inay jiraan saddex meelood ayaan idin sheegnay inay dagaaladu ka jiraan waa midka koobaad ee deegaanka Tigrayga gudihiisa gaar ahaan deegaanada ay ku yaalaan degmooyinka ay isku hayaan Amxaaro iyo Tigraygu oo gobolka Walkayt iyo sidoo kaleeto qaar kamida xuduudda deegaanada ku yaal magaalada Xumayra xudun ayay u ahay dagaalka deegaano kaleeto oo ku hareeraysanna waa la isku hay ciidamada dawladda ku Eritrea iyo kuwa Amxaarada waxay ku sugnaayeen Xumayra maalmihii la soo dhaafay magaalooyin ku yaala Walkayt ayaan idin sheegnay in ay qabsadeen TPL dagaal adagna ay ku ekeynayaan Xumayra waxa kale oo idin sheegnay deegaanka Canfarta iyo Tigrayga xuduudooda in uu iyadana dagaal ka socdo waqooyiga wadanka Ethiopia wuu horahay wuu holcay deegaanka Amxaarada iyo Tigrayga xuduudkooda sidaas la mid waliba woolo gobol la yiraahdo deegaanka Amxaarada ka tirsan degmooyin kamid ah cadeeyeen Amxaaradu inay wali TPLF gacanta ku hayso waxyaabahaasi oo dhani waxay ahaayeen arrimo wali socday waxa intaa dheeray TPLF oo marar kala duwan ku celcelinaysay xasuuq ayaa laga geysanayaa waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigray duqeymo caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn laga fulinay dad qaxooti ah oo la sheegay in la leeyahay caqabadaha soo dhanba ku hareereysnaa xaaladahan hore u soo sheegnay ee dhinaca nabadda u heelinay iyada arrini halka taagan tahay habka wax loo wado iyo sida xaqow tahayna ay kala fogeyd ayaa waxa jirta oo xilligan soo baxay dagaaladii oo laba korjibaarmay labadii maalmood ee la soo dhaafay kooxda TPLF waxay qabsadeen dhul aad u badan horta deegaanka Amxaarada iyo Canfarta dagaalka ka socda wuxuu salka ku hayaa lahaanshaha qaar kamid ah deegaanada la isku hayo ilaa 3 degmo ama magaalo oo ku yaala xuduudda deegaanka Canfarta ayay TPLF maanta si toos ah u qabsatay waxay Canfartu sheegtay oo warbaahintooda iyo warbaahinta maxalliga wadanka Ethiopia ba tabinayaan in ay dad badan oo shacab ah oo waxba galabsanin waxana gowraceen waxana dhaawaceen TPLF dawladda federaalka wadanka Ethiopia wali mayna si toos ah arintaas iyada uga hadlay deegaanadan hore ayay isugu hayeen waliba inta waxa dheer in Canfar ay ciilga muray TPLF u qabto sababtuna ay ahayd maalmihii ugu dambeeyay oo dagaalkii Abiy Ahmed uu qaybta ka ahaa waxa jirtay in meeshii laga bilaabay dagaalka
ee uu colaada abi ka bilaabay ee nimankan laga riixay ay deegaankooda ahayd halka dhabarjabinta deegaanka amxaarada lagaga qabsaday ay kaga timidna ay saddex xagalka deegaanadaas u dhaxeeya ay ahayd waxaa intaa dheeraa in canfar dhammaan shacabkoodii iyo maleeshiyaadkoodii iyo ciidankoodii gaarka ay arinta isku raacsanaayeen waxaa kale oo meesha ku jiray diyaaradahan droonka ahayn duuliyaha lahayn ee Iran leedahay ama Imaaraad baale ay leeyihiin halka ay ka duulayeen caasimada deegaanka canfarta ayay ahayd waxaa ku cadeynaya sawirradii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed lagaga soo qaaday halkaas iyada markii uu tagay ee dagaalkii halka toddobaad iyo maalmaha qaatay oo halka ka soo qaad waxyaabahaasi oo dhan waxay ahaayeen ciil loo qabay inta waxaa sii dheeraa in canfar ay TPLF si weyn isugu haleynaysay abaal hore oo ay u gashay maadaama ay iyaga oo deegaanada ugu yaryar wax badan u qabteen Soomaalina la cadaadiyeen cadaabka iyo cidhiidhiga gobolka Sitina TPLF qayb waligeed ka ahaan jirtay waqtigii Cabdi Maxamuud Cumar deegaanka qayb uga qaaday oo wasiirkii xilligaasi ee dhinaca kilalada iyo madaxii aqalka federation kuba ay qayb weyn arinta ku lahaayeen ayay islahaayeen abaalkii ayay idin gali doonaan waliba maalmaha qaarkood wararka la sheegay waxa intuu dagaalku socday in canfar maadaama ay siyaasad ahaan Ethiopia ka munaafaqad badan yihiin qoomiyadaha kaleeto hadba meesha dabayshu u dhaqaaqdana niman raaci yaqaan ay yihiin isku halayn ay TPLF qabtay laakiin intaasi oo dhan kama aysan hel waxay marka TPLF haysteen maahmaahadii ahayd hebelow sidaan kuugu lisay iguma aadan hambaynin sababtoo ah nin abaal tirsanayay ayay sidaa u galeen waa maahmaahadii kale ahayd libaax nin galay iyo nin galaday labadaba og taas ayay ahayd intaasi oo dhan oo la isku daray iyadoo jirto waxaa sii jirtay sanado badan oo 20 iyo dheeraad sano ka sii jirtay in ay ishayeen canfar iyo tigray dhul ay asal ahaan canfar sheegan jirtayna ay tigray qaateen deegaanada qaarkoodna xagga la raaciyay sida amxaaro iyo tigray hadda isu hayaan waa mid keentay marka hadda in dagaal culus oo foolka foola ay ku qaadaan waxa kale oo dagaalkan keenay gobolkan hadda galbeedka ku yaala ee saddex xagalka Suudaan Eritrea iyo Ethiopia xuduud ay ka furtay isleeyihiin aad bay ugu adkaatay ciidamo ay saraakiil Soomaali hogaaminayaan ayaa halkaas ku sugan waa kii in muddo ay suurtagal u noqon weyday midda ay TPLF xilligan ku dadaalaysana waxay tahay marin inay hesho taas bedelkeeda dhinacan canfartana waxay doonayaan in wadadan Djibouti iyo Ethiopia xiriirisa ay marinka helaan oo iyadana aad ogeydeen dagaaladii iyo dhacdooyinkii kala duwan ay ka dhacay waxyaabahaasi oo dhan waa kuwa xilligan keenay dagaaladan culus ee maanta socda ee xiisada wadanka Ethiopia mar kale cirka ku sii shareeray dagaal aad moodo in uu ka carcar badan yahay kii maalmihii ka horeeyay ayaa hadda socda waana arki doonaa halka uu ku dambe tani intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono nabad geliyo